run ahaantii maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxay tahay mindset-ka mise fikirka qofka bini'aadanka uu fikiro qof kastoo koonkan ku nool aragtaan wuxuu leeyahay himilo mise hiigsi mise meel fog oo wax iyo mise hami oo rabo inuu gaaro run ahaantii dhalinyarada maanta aniga ka mid ah kulligeena mise qaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa u baahanaa marka maanta inaan lahaano hal abuuro mise fikir mise wax inaan soo saarno run ahaantii marka maskaxdeena waxay leedahay saddex qaybood qaybta ugu horeysa ayaa ah qaybta ugu adag oo markaas ku dhehayso negative mise may kartid waxaan war macquul ma ahan waa qaybta ugu horeysa laakiin marka qaybta labaad aad gaartid waxaas leedahay waa qayb yar ku support gareynayso ku dhehayso sidii shalay waa ka fiican tahay maanta waa sidii hore waa dhaantaa marka waxa u baahanaa qaybta labaad kaliya ma ahan waxa u baahanaa qaybta saddexaad oo ah qaybta hal abuurka leh waa qaybta bini'aadanka wax ku soo kordhisa run ahaantii markaa fiirino qof kastoo dunida magac ku leh mise meel dheer soo gaaray wuxuu badanaa gaareen qaybta saddexaad oo ah isku day badan dadaal badan war maanta markaa hiigsanaysid halkan wax kastoo caqabad ah aad la kulantid wax uma arkaysid ila meel baa ku cad waxaa rabtaa inaad meel halkaas soo taabatid ninkan nalka sameey maanta aragtaan mise wuxuu isku dayaa 900 oo jeer waxaa jirta xataa marda inta isku waa attempt-igi iyo qaabka uu fail garoobay laakiin he never give up waxa lahay hami mise hiigsi asoo arkeen dhibaatada maraayo wajiga xumada maraayo laakiin adeyn wuxuu soo gaaray heer bini'aadanka wax soo kordhiyay marka waxaa rabnaa dhalinyaradeenan maanta marka badankeen waxa laga yaabaa inaan wadanka ka give up gareen marka ku tuso qof markuu target ka sameeyo mise hiigsi dheer sameysanayo kale waxa u baahanaa marka maanta example fiican xagga negative marka ka tuso waxay tahay qofka Soomaaliga marka wiilka dhalinyarada maanta meel fadhiisto go'aan buu gaari wuxuu leeyahay waa rabaa inaan baxo ilaa Yurub aad tago asigoo og qatarta badaas leedahay asigoo og asxaabtiisa ka horeysa inay ku dhinteen asigoo og at the same time u bareera ma ahan qof waalan ma ahan waa qofkii laakiin wuxuu target dheer oo yeesho oo rabo وعقبات كاستعمر وإنا ماشي أسأجارة مركو حاربنا إنا فكر كاسو بدنا بوزيتيف أكن يجي من ودن كينا على هانو حكرنا إنا جالسين مركا ودن إن ما دار لجالسين وحكوا حرنتا شخصيات دارته أذيك إنا أسهر مرسين أذيك إنت هربت إنا جالتين ما أنت أنا نقول هذلايا waxa isku daya waxay tahay liis ina qaybteeda ka qaad marka adigan idaawanay waxa loo baahan yahay waxay tahay war adiga isku day waxay rabtaa ha noqoto ina maanta fikir dheer lahaatid ina hiigsi lahaatid yeena ku celin ina tahay Soomaali mise ina tahay Afrikaan